السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن دعوة كسود هذا برامج كديرة جبلان تي في وتضبط كان كويجني فائدة أولية هي آخر أنا جو عول عبد الله طبقي قف والبا والدنيا كنول وحوبها هي إن وحنك أجاده وحيابها كجذامن جرهان لغنك تاريخ ذا الكيسة الدنيا أنت هذا كلا دين إسلامك يا أهمية جارسيسي وآخرسك وحنا تسالك وقفلا سورة يوه الرئيسية القرآن الكريم كا الله كسود جي رسول كيسة محمد nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee dalkeena Soomaaliya waxa uu kamid yahay dalalka lagu tiriyo in bulshadiisu tahay kuwa wax dhageysta oo aan wax akhrin sida aynu la socono wax akhrisku waxa ugu muhiimsan ee bulsho kaga hormari karto bulsho kale waayo waxbarashadu waa tiirka nolosha ugu qiimaha badan ee lagu kala tagay halkani waa maktabada magaalada Kismaayo waxaana xilligan ku sugan dhalinyaro kala daa kala aqoon ah oo u yimid inay helaan macluumaad cusub oo la xiriira dunida inteeda kale qaybaan ka ahay dadka halkan yimid si ay u akhriyaan buugagta halkan taala oo ka kooban cilmi iyo madadaalo waxaan su'aalo kooban weydiin doonaa Xamda Caraale oo ah gudoomiyaha madasha maankulan iyo maktabada magaalada Kismaayo waxaan weydiin doonaa shan su'aalood oo mid ugu horeysa ay tahay maktabada Kismaayo ee sameeyay kan in la furo أنا سنتعود ونسولو النبضة في جبلان سويه كان مكتبة دين الفروح هيد باهي أنا وأرجع بالشدة أنا كمقنطعة مركز لقيته سكول لذا إدكسيات إن لو باهي هاي public library مال أرضي دو إدت كردم أو حقوق آخرستان بالشدة إن هلا مكتبة جود ومقالة إن هلا مكتبة جود ومقالة اللي هاي لو كنت تدويتون كي بيش تمناد لاتين تدوي دي بنسورة قلنا إن سمعنا مدرسة معقولة تاسو له ماشان عن هذا كسرنا هاي مكتبة الجود مالك اسمعي مركب هاي وحن دريمني مع أرجنا ما استثناء أنا ودور بالنيرة إن لو بهاي هاي وين كم غيه بالشدة تاسو إن الله سمع جوب حلو آخرسته جوب وعي قلنا نرجلين ونقطها بالشدة قف أرضيها مركب الصبح سكول كه مال وكويل كرينو مدارس 10 دقيقة سكالة وكودي أرصده مسكح دي سنة كبرين سواء سنة وكل فينا واتي يهلكن يمادو وحكو آخرستا أن وحي ماذا أرضيها يدمان رئيس معي يروين رجيم دمر اتكستا أو شعل آخرستا وحيسس إن واحد قوتان كل ما آخر وردا وجودين كأدكني ذي معيين إن أنت بدن إن نسكت في سنة عرفتي هذا إن المشي لو كلا قاطع علمي هي إن أسوس صارنا دنيا هذا الرقص مايو waxay sidoo kale tahay inaan ku dhiirigelinayno dhalinyarada inay wax akhriyaan kadib waxay akhriyaan noola yimaadaan stage kala yimaadaan oo ay noo akhriyaan books like inay qofka book soo akhriyo kadib bookii soo jeediyo kadib bookga laga niqaash marka marna waxay qofka u noqonaysaa ardayga ahaa ama dhalinyarada ahaa dhiirigelin annaguna waxay noo noqonaysaa ama dadkii ka soo qayb galay ee ka niqaashay yani fursad muhiim okay أروح ناقص أنا حاسك فايدة. ها وأنا أخريه هذا موضوع عن أخريه هذا بروح وخسير بنك فايدة مركز تو وحقرص يوحكس تو دقرص طبعا وحباتك فايدة سفايدة لنا. ما تمدولي كرتان بهذا أرض لك اسمعيه هذا تيم من كلهم. ها. نحن سلين هاي ملف عمر ما أنت كمرينا كذب مدة هالسنة أو أي مقرون أساسني إن شاء الله وحن رجينا إن سبوح ذا وهلي دانو إن ندبرنا أرضي دباهيودا يعني هذا عن كتلة شرنا صونا قبلنا برامج بدنو أنفع لنا أرضي ذا ولو بس كار أرضي مقالة اسمها سكول جبلان waxaa ka socda kacdoon wax akhris oo ay hormuud u yihiin dhalinyarada wax baratay ee ku sugan magaalooyinka waaweyn markaan waxa aynu eegaynaa xarunta maktabada Ifiye ee magaalada Muqdisho Cabdikariin Shadane ayaa booqday xaruntaas lana kulmay maamulka iyo dhalinyarada wax ku akhrisata xaruntaas bismillaah halkani waa xarunta Ifiye ee magaalada Muqdisho waa xarun ay hal abuureen dhalinyaro Soomaaliyeed waa xarun lagu akhristo
waqtiyada kala duwan imaadaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo raba inay wax akhristaan isla markaasna buugta kala duwan ee halkaan taalo wax ka akhristaa waa xarun si kale markii loo dhaho dad badan ay wax ka faa'iideen oo inta badan inta imaadaan halkaan ay wax ka akhristaan waxaan Jubbaland TV oo maanta halkaan yimid oo ka diyaarin doona warbixin ku aadan wax qabadka muuqda iyo hal abuurka laga lahaa xaruntan Ifiya oo aad u jeedaan in ay leedahay maktabad guud oo wax lagu akhristo centerna u ah xaruntan halkaan waxaan wax ka weydiin doonaa ustaad Maxamed Cabdirasaaq Faarax oo agaasimaha gudoomiyaha guud ee xarunta Ifiya si aan wax uga ogaano xarunta Ifiya waxay qabato iyo ujeedada laga lahaa iyo ahmiyadda ay u dhisan tahay walaal ma santahay Jubbaland TV na uma celinayna maanta soo booqdeen runtii isku celcelis ardayda yimaada ama dadka guud ee xarunta Ifiya wax ku akhrista isbuuciiba inta badan qiyaasna waxay gaarayaan adiga ilaa dad 400 ilaa 500 qof gaarayo inta badanna waxay ku xiran tahay xilliga la joogo haddii jaamacadaha furan yihiin ama iskuulada furan yihiin inta badan way adag tahay in ardayda ama xilliyada imtixaanada kale ama dadka intooda badan xilliyada aadka mashquulka waa inay yimaadaan laakiin xilliga maaragtay fasaxa lagu jiro waa xilliga ugu badan ee dadka akhristayaasha ay yimaadaan haba ugu badnaadaan dadka ardayda ah ee maaragtay imtixaanaadka ama daraasaadka kale xarunta ku sameeynaayo marka si guud bishii waxaan dhihi karnaa 2000 ilaa 2500 qof oo dada way yimaadaan sidoo kale xarunta waxa ka dhaca barnaamijyo kooban oo akhris wadareeda bandhig buugaag iyo maaragtay sidoo kale bandhigyo farshaxan oo intooda badan suugaanta la xiriira marka barnaamijyadaas oo dhan oo la isku daray intooda badan waxay u soo jiidaan dad badan oo xarunta yimaada siyaabo kala duwan u soo booqda wax ku akhrista laftirkooda wax ku soo bandhiga marka dadkaas oo dhan marka la isku daro waxay noqonayaan tiro runtii aad 2000 ilaa 3000 qof gaaraya laakiin markasta waxay ku xiran tahay xilliga la joogo marka qaar kood way ka yar yihiin waxa laga yaabaa bishii inay marka qaar kun qof timaado ayadoo loo fiirinayo xilliga la joogo ama iskuulka xilligiisa ama jaamacadaha ama sida kale xaaladda guud ee magaalada marka la fiiriyo maxay tahay ahmiyadda wax akhriska laga leeyahay xaruntan Ifiya xarunta Ifiya waxyaalihii loo aasaasay ko waxa kamid ahaa inay dhiirigeliso arrimaha akhriska qoraalka hidaha dhaqanka iyo suugaanta si aan u dhiirigelino akhriskana wixii ugu horeeyay aan qaadno waxay ahayd inaan maktabad furno waliba dadweyne oo bilaash ah furana subaxii 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo waliba bilaash ah marka laga reebo maalinta jimcaha waxa ugu weyn maaragtay muhiimadda akhriska uu yahay waa waxa ugu fudud ee qofka bini'aadanka bedel ku sameyn kara haddii uu wax bartay iyo haddii isagu wax isbarayaba oo nidaamka waxbarashada traditionalka maray ama isagu wax isbarayo qofku markastuu wax akhriyo oo maskaxdiisa shakhsiyan ay wax iska bedelaan waxay noqonaysaa inuu isaguna la jaan qaado maxay ahayd tooy wadanka uu ku nool yahay oo bedelkeeda maaragtay qayb ka qaato si guud marka waxa dhalanaya isbedel guud oo wadan shakhsi iyo ummadeed oo inta badan horseedi kara maxay ahayd tooy wanaag dhanka maaragtay horumarka ah oo si guud maanta waxa ugu baahi badannahay ay tahay Soomaaliya markay burburtay wixii ugu horeeyay oo dadku arkayeen burburka u muuqday waa inta infrastructure-ka hadday noqon lahayd dhismayaal iyo wadooyin iyo laakiin waxa ka badan dadka maskaxdooda iyo dadnimada iyo qiyamkii sidoo u baaba'ay waxa kaliya lagu soo celin karaana waxay tahay waxbarashada iyo dhiirigelinta buugaagta dhisi kara dadka maankooda iyo maskaxdooda dadka Soomaaliyeed ma ka faa'iideysan karaan xarumaha la midka ah xarunta Ifiya oo wax inta laga faa'iido meelahaas kale laga faa'iidin karaa xarunta Ifiya iyo xarumaha la midka ah ee Soomaaliya ka furan aadna muddo sanadadii ugu dambeeyay inay soo badanayaan tusaale anagu 5 sano hadda shaqeynayna 2013 la aasaasay laakiin xarun ahaan waxaan furanay 2000 iyo maaragtay 16 markii ugu horeysay la furay marka faa'iideysiga wuxuu ku saleysan yahay inteeda badan arrimo cilmi iyo arrimo maaragtay baraarujin iyo maskax fur iyo intooda badan doodo cilmiyeysan iyo barnaamijyo intooda badan ka turjumaya xaaladda bulshada ama si guud wacyiga dadka u dhisaya marka waxay noqonaysaa dadka inay si maaragtay wanaagsan uga faa'iideystaan waxa jira waagi hore aragti dadku ay aaminsanaayeen jirto dadka Soomaalida wax ma samaysan karaan qaasatan dhalinyaradu waxay hogaaminayaan oo ayagu ay sameeyeen oo intay maaragtay taabagaleen shaqeeyay raagay mustaqbal yeesha intooda badan waxa ahaan jirta runtii aragti aad u adag oo dadku intooda badan aysan ku dhiirin karin laakiin hadda waxaad moodaa inay mashaariic badan hawlo badan xarumo badan dhalinyaradu hogaaminayso ayagu wax qabsanayaan isku tashanayaan tusaale isku noqonayaan taasna si guud waxay marka u noqonaysaa laba faa'iido kow xarumaha dadkii ku xidhmaayeen inay ayaguna wax ka bartaan maaragtay dad ku bartaan sidoo kale dadka meeshan yimaado ayaguna ay dad kala sii saameeyaan oo meesha lagu soo xirmo si guud
marka waxa dhacaysa isbedel bulsho oo maaragtay dadku ay sida wanaagsan isku saameynayaan haddii shalay la iskugu faani jiray arrimo maaragtay qabyaalada ama ka qayb qaadashada arrimaha amni darrada ama wixii kale ee maaragtay wadanka dhibaato ku ahaan lahaa maanta waxa lagu tartamayaa adiga maxaa wadanka ku soo kordhinaysaa maxaa u qaban kartaa maxaa qayb ka noqon kartaa oo maaragtay si guud ummadan dadkan iyo dalkanba faa'iido ugu leh marka si guud ma waxaad moodaa faa'iidadu inay ku salaysan tahay danta guud ee dalka laakiin haddana shakhsi marka uu fiiriso tusaale anaga xarunta buugaagta noo yaalo kale buugaagta ugu badan ee la soo xulay ee la doonayo in la akhristo ama xarunta ay yaalaan waxay buugaag Soomaalidu ay qortay ama buugaag Soomaalida laga qoray si ay fariin u gudbiyaan inay dadka wax ka bedelaan kaliya inuu qofka buug akhristo oo maaragtay meesha uga tago macna ma yeelanayso laakiin waxa muhiim ah qofka inuu wixii akhriyo fahmo isbedelna ku sameyn karo muxuu yahay kala duwanaanshaha dadka akhriya iyo kuwa kale runtii inay bayaan tahay oo maleynaya iska cadahay qof wax aan wax akhrin horta inuu qofku wax akhriyo waxa ka horeysa inuu wax barto iskuul tago ama waxbarasho si kala maartay fursad ugu helo laakiin waxa jira dad badan oo wax bartay hadana aan wax akhrin oo kaliya ama iskuulkii ama ayaamihii waxbarashadooda kaliya ama wixii daraasadu ay muhiimka ugu ahayd imtixaanka ku baasi lahaa inuu ku ekaado laakiin qofka wax akhrista waa qof la nool quruumo kale intii ku horeysay taariikhda wixii waay aragnimo aha wixii qaladaad la soo galay wixii dadkii ku horeeyay ay wax ku xalin jireen ogaan kara waa qof ogaan kara daraasada waxa gaarka uu ka sameeynayo ama isagu uu baranayo ama uu akhrinayo ama uu danaynayo uu uga noqon karo haddii waqti badan geliyo inuu isagu noqdo qof tusaale ah bari oo wax laga qaato markuu qofku wax akhriyo sida saxda waxay tahay wixii hore uu daraaseeyay iyo waxa uu maanta baranayo iyo taariikhdii hore markuu isku fiiriyo inuu isaga kala soo baxo go'aankiisa maaragtay shakhsiga ah oo wax ka qaato ama aqoonta wax ku soo kordhiyo ama dadka wax uga bedelo marka si guud waxay noqonaysaa waa laba qof oo runtii aad iyo aad u kala fogo mugdiyo maalin kala ah waana wax maaragtay inta badan hadda Soomaaliya oo kale waxbarashada oo kale dadka ilmaha u helaya waxbarashada oo kale waxa ka mid tahay meelaha ugu liita marka la galayo iskuulada waliba dugsiga hoose dhexe maaragtay inay ilmaha iskuul waxbarashada jaanis u helaan ay aad u yar tahay maktabaduhu dalka ku yar yihiin public facility ama wax dadku ay dadweynaha wada heli karaan runtii aad u yar tahay waqtiga keenay ma dhaleecaynayno laakiin haddana qof kasta inuu is hormariyo shakhsiyan fursad ugu helo inuu isagu wax akhristo isku bedelo nafsadiisana maaragtay iyo dadka kale oo maaragtay fursad siin karaba inuu wax ugu bedelo waa waxa ugu muhiimsan marka labada qof farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya waxay tahay inuu qofna maaragtay ra'yigiisa iyo intuu la fadhiisanayo intuu la falgalayo in ka badan uu fursad u helayo qofna uu ku ekaanayo intii uu maalin akhriyay ama intii imtixaanka uu ku galay kaliya magacay waa Safiya Ahmed Xuseen waxaan kamid ahay ardayda dhigata jaamacadda Jazeera kulliyadda caafimaadka meeshaan ifiye ku dhawaad muddo 3 bilood camal ayaan garanayaa oo meel aad iyo aad muhiim u ah oo habboonaan dadka inay wada bartaan waa meel aad iyo wax oo ay buuxaan buugaag badan oo cilmi ah ani ahaan waxaan u imaadaa meeshaan inaan wax ku akhristo hadii ahaan leed buugta jaamacadeeda oo ah markaan jaamacad ka soo baxo kale jaamacad waa wada buuq inaan casharada jaamacad ku fargareeyo sidoo kale buugaag Carabi Ingiriis Soomaali ay luqadaha taal meeshaan buugtaasna midka iga anfaco inaan akhristo saas ayaan u imaadaa meesha marka ugu badan warmay ku bixisa warmaysi waxa akhrisata galab subax habeen badana waqti ugu badana inta ay imaado waqtiga jaamacadda ka soo baxo badana galbihi marka jaamacadda imtixaan ka soo baxano ay maxaa ka faa'iido inta imaanaysa la intii hadda ku dhawaad waxa laga yaabaa 3 buug yani waxay kugu dhiirigelinaysaa maanta oo dhan hada akhrinaysid 10kii halkii maado waa ku caajisaysaa marka maadadaada cabaar ah ku daashid buuga iska soo qabsanaysaa Ingiriis ama Carabi ama Soomaali waa akhrisanaysaa saas waxay ka saaciday marka isbuuc 2 buug ama 3 buug oo kale inaad ku fargaraysid oo ka baxsan waxbarashadaada aqoontaada saas ku bixiso magacay waa Amaan Nuur Cali waxa kamid ah ardayda wax ku akhrisato maktabkan ifiye waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u kordhayay ololaha wax akhriska oo ay hormuud u yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed Qardho waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dhalinyarada ku nool ay xoogga saareen sidii loo hirgelin lahaa wax akhris warbixintan soo socota waxa inooga diyaariyay wariyahayaga Cabdicasiis Haybe Ibraahim
sida inta badan la xaqiijiyo ama cilmi baarayaal badan ay sheegeen in uu faa'iidooyin badan leeyahay akhriska la akhriyo macluumaad kala duwan iyo xogo dheeri ah ayuu qofka akhriska badan ka helaa waxaana uu kaga duwan yahay qofka aan inta badan akhrin ma helo wax macluumaad ah oo kala duwan haddaba si aan ugu bayaamino bulshadeena ayna ugu baraarugaan una badiyaan wax akhriska waxaan su'aalo akhrisku muxuu faa'iido leeyahay dhexdhignay macallimiinta iyo qoraallo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Qardho waxaana hadaladoodii ka mid ahaa kelmadii waarimayside war ha ka haro bulsho walba waxay ku hormari kartaa ama mataqaanaa ay heer fiican ku gaari kartaa waa inay wax akhrinaa si walba oo aynu ku xoojin karno inaynu wax ku akhrino waa inaynu u kacnaa oo wax ku akhrinaa halka aan ka dardargelinayno inuu qoraalkeenu soo bato laakiin waa inaynu dardargelinaa inaynu wax akhrino akhrisku inuu indho badan kuu yeelo halka qofka kale oo mataqaana waxba akhrin laba indhood kaliya leeyahay oo adigu aad yeelanaysid 4 indhood waa oo kale inaan sheego anoo motivation ka dhigaya ama dhiirigelin hadalkayga dhalinyarada yaryar oo wax qorta waxaan jeclahay qoraalkooda inay wadaan ayna ogaadaan ummadda maanta adduunka wax qorta ama wax lagu soo bandhigo inaysan u badnayn dhalinyaro inay wax qorto ay u badan yihiin dad runtii waaweyn dadka Soomaalida maanta waxa u badan dadka yaryar inay wax qoraan gobolada meel walba ka joogeen noqda kuwa wax akhriska ugu badan oo dadka dhexdiisa kaga muuqda isla markaasna kuwa wax qora aad u badataan oo dhalinyaro u noqotaan wax akhriska badan qofku markuu badiyo waxbuu qori karaa sababtoo ah wax la yiraahdaa qofka aan abwaanka ahayn oo suugaanta yaqaana waa qof in badan dhageysta suugaanta ama gabayada dhageysta isla markaasna luuqada ka yaqaana waxyaalo badan qofka marka gabayada dhageysta oo xafida amba qora suugaanta wax badan buu ka yaqaanaa erayadii haday noqoto kaasaana roon inuu wax sameeyo samayn kara marka kan wax akhriyana waxa uu qori karaa waxbuu qori karaa cilmigu waa akhris laakiin ummadda in yar baa dareensan waxaan la siyaabay ninka marka oraahda bixinaya waa nin Mareykan waay wuxuu gadaal ka raacinaya boqolkiiba 93 dadka adduunka ugu caansani waa dadka wax akhriya hoosna wuxuu ku qoray boqolkiiba 7 dadka adduunka aan la aqoon waa dadka aan waxba akhrin waan yaabay marka dabcan waxaan rabaa inaan wax yar baraarujiyo ummadda Soomaaliyeed wadankeenu burbur soo maray aad iyo aad waxa loo baahan yahay dhalinyaradu maanta inay xooga saaraan akhriska sababtoo ah waxay fahmayaan ama dareemayaan faa'iidada akhrisku leeyahay waxa kamid ah oo ugu sahlan carabkaaga carab jalqin wax la dhaho jira hinraag wax la dhaho jira waxa عيالك تصالح مركي مدادالينايو waxyaalo badan oo qofku markuu ku celceliyo carabkiisu jilciyo baa jira laakiin ilmaha yarka ah hadii uu la qabsado oo ku celceliyo sida gaar ahaan hooyada aabaha marka ay ilmaha rabaan inay hadalka baraan waa in akhriska u badiyaan oo dhahan hooyo xarafkan akhri muxuu yahay aabe ku celceli aabe Abdicasiis Ibrahim warbaahinta maamul goboleedka Jubbaland magaalada Qardho دكتور محمد حسن نور ديوانيها جودة جامعة مقدشو وحو شرحيا أهمية وح أخرسكا يدورك أي كقاتان إلا دي رجليو أرضيده يا شعب كله أخرسكو ومهمها لكن وقبنا مركي لسوق جامعة وكدوينها صوت جامعة معها ميل انت كلاس لسوق تسموين أدينا أتسي بلارسته أو أحسي أخرسته marka dhaqanka jaamacadeed ayaa wuxuu yahay inuu akhriska kobciyo ardayga aan wax akhrisanin meel ma gaarayo saadarteed ayaa jaamacadaha waxa loo qaato waxa way takhasus kasta ha ahaado laakiin jaamacaduhu waxay ka siman yihiin in heerka waxbarasho ee jaamacadu u qaadanayo takhasus kasta ha ahaade uu ka koobnaa 3 qaybood qayb waxa loogu talagalay aqoon guud qaybna waxa loogu talagalay kulliyadaas waxbay u baahan tahay qaybna waa takhasuskii marka dabeecadda
waxbarashada ee jaamacadeed ayaaba wax akhris ah marka waa saddex qaybood qayb waxay ka dhaxaysaa ardada jaamacadda oo dhan ayay ka dhaxaynaysaa requirements ama mutalabaad baan wax ardada oo dhan laga raba dheh qayb waxaa laga rabaa intii isku kulliyad ah maadooyin iyo waxay wadaagaan waxay wada dhiganayaan ay wadaagaan kadib ayuu imaanaya takhasuska departmentiga iyo qofka uu doortay takhasuskiisa ah sadarteed ardaygii takhasus ka soo baxay macnihiisu maaha inuu takhasuskaas kaliya xataa garanayo waa inuu wax garanayo kulliyad uu ka soo baxayna wax garanayo waa inuu aqoontii guudna wax garanayo taas marka ayaa loogu talagalay inay jaamacaduhu akhriska ay kobciyaan way dhici kartaa duruufaha wadamada iyo ummaduhu way kala duwan yihiin duruufo wax akhris oo culays ah way dhici kartaa oo ku xeeran dadka Soomaaliyeed waxay adduunka kale la wadaagaan way jiri karaan waxay kaga fiican yihiin way jiri kartaan haddii aan soo qaadno tusaalahan waxa iska jirta wax aan diraaso iyo cilmi iyo aqoon aan ku salaysnayn oo iska caan baxay oo lagu dhahayo dadka Soomaaliyeed wax ma akhriyaan waxay nooga baahan tahay intaan iska hor istaagno inaan dhahno maxaa ka run ah maxaasan ka run ahayn marka laakiin waxa inagiina aan iska dhaadhicinay adduunkiina inoo galay in dadka Soomaaliyeed wax akhrin oo horreyn horta dadka Soomaaliyeed waa muslim waxa laga yaabaa ruux kasta ama inta badan dadka Soomaalida inay maalin kasta akhrisan juz quraan ah xisb quraan ah sababta Soomaalida waa dad aqoonta quraanka caan ku ah horta marka meeshaas waxaad ogaanaysaa dadka Soomaaliyeed wax way akhriyaan ee waxa akhriyaan baa la isweydiinayaa haddii quraankii laga saaray waa arrin kale laakiin dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay akhriyaan quraanka haddii marka la miisaamo oo la soo qiyaaso qofka Soomaalida wax akhriya ee quraanka akhriya waxa dhici karta adduunka inuu ka hormaro haddii laga wado akhriska kale buugaag iyo waxa la akhriyo aqoonta kale iyadana waxay u baahan tahay inaan fiirino oo dhan dadka Soomaaliyeed in la ogaado haddii ay jiraan marka xarumo cilmi baaris oo ka saaray warbixin rasmi ah oo intaas wax ma akhrido intaan wax ma akhrido dhahaya oo wax kale heer hadda lagu cabirayo akhris la'aanta Soomaaliyeed lama garan karo laakiin waxa la hubaa dadka Soomaaliyeed inta badan way fariiqaanaan gaar ahaan farta quraanka way fariiqaanaan yani ruux Soomaali oo quraan dugsi quraan la geenin in la arko uu yar yahay sadarteed ruux Soomaali oo farta quraanka carabi aqoonin ma jiro saada marka hata xaggaas waan ka soo gudbaynaa haddii hadda la qiyaaso wax weyn bay inoo koreen laakiin jaamacaduhu waa meel iyadana lagu sii tayeeyo lagu sii kobciyo akhriska sadarteed kaalimaha ay ku leeyihiin akhriska iyo qoraalka waa muhiim hadda waxaad arki kartaa marka wadanku markuu duruufta gashay in la qabanayo kulamo ama bandhigyo kala duwan oo caasimadaha ama goboleedyada ee Soomaaliya lagu qabto xilliyo kala duwan oo magacyo kala duwan wata waxaa jira marka naadiyo yar oo dadku ay leeyihiin wax ku akhriyaan jaamacaduhuna de library iyo maktabad ay leeyihiin ardaygii waa inuu akhristo ama imtixaan wax u akhristo ama aqoon guud wax u akhristo ama asagoo macallin wax akhristo wax meel kale wax ka dhigaya marka jaamacaduhu kaalinta ay ku leeyihiin dadka inay wax akhriyaan waa kaalin weyn oo muhiim ah jaamacadaha Soomaaliyeedna jaamacadaha adduunka ee hawsha qabanaya ay ka mid yihiin jaamacadda Muqdishona waxay ka sii mid tahay jaamacadaha Soomaaliyeed ee hawsha wax ka qabanaya ay ka mid tahay way u furan yihiin horta ardayda jaamacadda way u furan yihiin dooba jaamacaddii macallimiinta way u furan yihiin iyadana waa macallimiintii ardaydii jaamacadda Muqdisho hore u dhameystay way u furan yihiin oo alumni ama naadil kharijiin golahaas dadka jaamacadda ka baxay ayna kaar bay ku soo gali karaan ciddii kale de wax iska furan oo rida furan oo jaamacaddu ma waa goob waxbarasho ma aha meel iska furan oo cid kasta iska soo gali karto laakiin ciddii soo marta habkii akadeemiga ama cilmi baaraha ahaado oo waxa la siin karaa maalmo iyo toddobaadyo intuu hawshiisa ka qabsan karo waa la siin karaa ciddii soo dalbata inay jaamacadda maktabadaheeda kala duwan ay wax ku akhriystaan ana way u furanta waa la siin karaa laakiin de wax ma aha iska furan sidii maqaayadii inta la sagalay ma aha dhaqankaas ciddii leh ama cilmi baaris rabta ama inay wax ka faa'iideysta rabta soo dalbata jaamacaddu way dhiirigelinaysaa wayna siinaysaa wax uu ku galo librariyada kala duwan ee jaamacadda uu kaga faa'iideysto laakiin hadda jaamacaddu ma laha intii la qaato kaar sababta jaamacad ganacsi ma aha oo de jaamacadaha public ee ganacsiga ayaa waxay leeyihiin ka qaybgal oo intii lacag la iska bixiyo lagu galaa laakiin jaamacadda maadaama ay tahay meel lagu talagalay cilmi baaris iyo ardada jaamacadaha iyo jaamacadda gaar ahaan
qof kasta oo Soomaaliyeed ama adduunka qof kasta oo bini aadama oo raba inuu cilmi baaris sameeyo jaamacaddu ay ku kaalmanaysaa uu gali karaa library jaamacadda qof kasta oo Soomaaliyeed oo raba inuu ka faa'iideysto haddii uu soo dalbadana jaamacaddu way siin kartaa inuu wax akhristo uu ka faa'iideysto wax ka qorto way siin kartaa jaamacaddu bismillaah waa ku faraxsanahay inaan soo booqdaan TV-ga Jubbaland noogu yimaadaan xarunta weyn ee jaamacadda Muqdisho kambaska weyn ee ku leedahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid ee hadda aan ku sugannahay gaar ahaan inay noogu soo booqdaan maktabadda jaamacadda dhexe jaamacadda Muqdisho inay noogu yimaadaan oo ku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad isku celcelis afarta maktabadood marka la isku daro Iran arday gaarayso 150 ilaa 100 na soo booqdaan siyaabaha kala duwan waqtiyada ugu badan akhriska maktabadda ardayda aad u isticmaalayaan waqtiyada imtixaamada lagu jiro oo kale daraasada ardayga oo imaanayo maktabadda waxay muhiim u tahay ardaygii iyo maxaan ahnaa macallinkii iyo waxay isku xiraysaa iyo isku xir macallinkii isku xiraysaa jaamacadda yacnaa waa meesha u dhaxaysay arday iyo macallin u dhaxaysay oo buug uu ka qaadanayo muqarrarka yacnaa marka laga hadlayo waxbarashada saddex waxba asal u ah waxaa asal u ah macallin iyo arday iyo buug marka maktabadda waa meeshii buugga laga qaadanayay oo macallinka uu buug ka qaadanayay ardaygana wixii research u baahday iyo marjac iyo meesha u soo noqonayay yaa waxay tahay maktabadda marka taas waxay u leedahay iyadana muhiimad zaa'id ah jaamacadda ugu fadhisaa maktabaddan inay hormarayso inay markasta ka shaqeyso inay markasta maktabadda ay leedahay jaamacadda waa meesha ugu weyn ee ku xisaabtamayso jaamacadda una baahida ardayga uu ka bogo karo macallinkana ardayga uga adeegi karo waa mahadsantahay su'aal fiican waaye ardayda jaamacadda ay u shaqeyso waxa waaye dhammaan haddii ardayga loogu talagalay jaamacadda inuu ka faa'iideysto 100% waa ardayga jaamacadda Muqdisho ka diiwaan gashan kaarka jaamacadda wato oo galaaska noo fadhiyo ardayga ah laakiin haddana waxaa imaatay wixii waa waxbarasho waana cilmina ma galo in la kala xigsado ma galo saa darteed marka jaamacaddu waxay samaysaa ardayda jaamacadaha kale ka imaanayso gobolka Banaadir nala degan kaararkooda ku ixtiraamnaa waxay noo sheegaan kaararkay wataan jaamacaddu ka diiwaan gashan yahay kadibna waa u fasaxnaa in uu qaybta rabo uu tago oo baarid uu ka sameeyo marka waxay u furan tahay dhammaan ardayweynta Soomaalida wax baranayso dhan laakiin waxaan ka rabnaa bas inuu sheego isdiiwaan galiyo ardaygaas oo inuu maktabadda la tacaamulayo ah laakiin kan kale jaamacadda ka tirsan wuxuu ku imaan karaa kaarkiisa caadiga ku imaan karaa ayda hore u sheegay oo waxa waaye waxay isku xirtaa ardaygii macallinkii iyo waxay isku xirtaa ay u dhaxaysaa oo buugga meesha ka qaadanaya ahayd arday kaste ardaygu ka wax akhris badan yahay amba ka cilmi baaris badan yahay iyo wuxuu waaye cimri ahaan uu ka weyn yahay yacnaa qofkii wax badan akhriyo wax badan ogaanaya qiraa'ada qofku waxay gaarsiisaa cimrigiisa da'diisa da' ka sarreyso ay gaarsiisaa saa darteed marka arday kasta ardaygu ka wax barasho fiican yahay waa ardayga maktabadda uga dhow yahay oo ku xiran yahay ardayda zaa'id kula tacaamashana maktabadda waa kuwa kaalimaha jaamacadda u gala ugu horeeyo oo maktabadda markasta la xiriiro sameeyo research sameeyo zaa'id ah marka waxay u fiican tahay arday kasta oo maktabadda yimaado oo wax akhriyo waxa waaye waxay wax ka bedelaysaa garaadkiisa iyo aqligiisa iyo waxbarashadiisa wax dhan isbedel ku dhacayo isbedelkaasna waxa keenaya buugan uu la noolaanayo oo ka hadlaya taariikh hore waxyaabo update ah wax kasta ka hadlayo marka wuxuu helayaa qofka cilmi balaaran wuxuu helayaa saas darteed marka waxay imaanaysaa in uu ardaygaas ka soocan yahay ardayda kale inuu ka soocan yahay yaa imaanayso magacaygu waa Shukri Cabdiqaadir Nuur waxaan bartaa kulliyadda computer science-ka maalin kasta break time-ka maxalliyada waqtiga afriiga ah u helo waxaan soo aadaa maktabadda sida aan u faa'iideysto waxaan baranayo cilmi ka sii dheeraata waa la soconaa maktabadda waxa ka faa'iidno because waxaan ka saacideysaa waxa baranaysid wax ka sii dheeraada inaad sii heshid xoog aad u muhiim ah because aan waxaan bartaa kulliyadda computer science kana waa in la dawaraaca maalin kasta waxa ku soo kordhayo waa in maktabadda buugaaga la keenaa oo faa'iidooyin u leh oo update ah oo ku dambeeyay macallin inta ku soo qaado oo ku dhaha daabac waxa fiican in ay imaatid maktabadda aad ka faa'iideysid cilmi dheeraad ah ka kordhisatid maalin kasta waxaan soo aadaa kambaskan bismillaah anigoo magacaygu yahay Xalan Cali Xasan Xalanle dhigta jaamacadda Muqdisho kana barto kana mid ah ardayda wax ka barto ee jaamacadda Muqdisho faculty-ga iyo kulliyadda ay tahay computer science degana magaalada
waxbarashana uu soo aadaa meel ka baxsan ee magaalada ee ku taala jaamacadda muqdisho waqtiyadeeda firaaqada yacni oo bareega oo kalena aan ku qaato library-ga yacni sidaan aqoonteeda iyo waxbarashadeeda aan u siyaasado waxaan ka siyaadsadaa oo kale wax ku tacalluqa kulliyadda aan baranayo koley wax aqrinta maasha allah koley qof wax aqriyo waa mar walba aqoontiisu way siyaadaysaa qofkan wax aqrinna koley waa qof aqoontiisa iyo qof xirxiran waaye qofku aqriyo waxa waa aqoon badan iyo faa'iidooyin badan way u leedahay aqrinta wax aan baranayo magacayga waa Abdullah Faracadi dhigta jaamacadda Muqdisho waqti freega badan waxa ku qaataa maktabadda jaamacadda maktabadeeda sida break oo kale xalada maktabad weyn kaasoo wax badan oo faa'iideysan karo akhriska muhiimad fiican uu leeyahay sababtoo qofka noloshiisa wax kaliya bedelayso akhriska marka akhrisa amaanad socodsiisa kartaa waxaan isiinaysaa furfurnaan iyo deganaan inay siiso inaan akhriyo maalin kasta inta wax bilaabo oo maktabada soo galay ilaa maanta wax iska bedelay ka horto inaad deganaan helo wax kas go'aanadeedana go'aano oo laga fikiro oo deganaan ay noqdaan waqtigana aad dareem inaad ku raaxaysanayo waxba oo si firaaqo oo si iga bixinin buugta waqti ugu badan ku bixiyo akhriyo waxa kamid ah buugta kuliyadeeda buugta siyaasadda ka hadlo iyo arrimaha diinta qofka bil'aadamka ahi maaha inuu u koro oo kaliya jir ahaan waa inuu u koro si maskaxiyan ah waxaana kaalin weyn ka qaadata akhriska iyo qoraalka badan waa sheekada toddobaadka ee barnaamijka diiradda maskaxdu waxay u baahan tahay in ay samayso korsiino dhan walba leh caafimaad ahaan qofku inuu wax akhriyo faa'iido ma u leedahay sharaxaad kooban oo akhriska iyo shaqada u dhexeeya maskaxda waa kan Dr. Ciro agaasimaha isbitaalka Daryeel ee magaalada Kismaayo markii akhriska laga hadlayo iyo markii maskaxda laga hadlayo waa laba shay oo kala maarmi karin qofku hadduu wuxuu maskaxba in jirinba oo maskaxiisu ay shaqeyn wax ma akhrin karo inta haddaan ka soo gudbo faa'iidada ay u leedahay akhrisku uu madaxa u leeyahay halkan lagu ma soo koobi karo laakiin waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka soo qaadano markii wax la akhrinayo xubno badan ba wax laga akhriya aragu waxba uu akhrinaya aragu wixii baad arkaysaa wuxuu fariin u dirayaa maskaxda ayuu u dirayaa walidaalika akhrisku markuu qofku wax akhrinayo ama akhriska uu badsado waxaa dhacaya stimulation of the brain cells in maskaxda unugyada ku jira ay stimulated ay noqdaan stimulated maxaa kuwa active oo shaqadii wada shaqa yani shaqa heer sare ay qabanayaan okay waxa la ogaaday akhriska marka badan in uu hoos u dhigo cudurrada ku dhaca dadka da'da waa daraasaad la sameeyay lama dhihi karo boqolkiiba waa boqol hada boqolkiiba lama dhihi laakiin waxa la ogaaday daraasaad la sameeyay ama maarta cilmi baaris la sameeyay qofka haduu aad u akhriyo oo akhris uu leeyahay oo qof wax akhriyo uu yahay in qofka kale caamada aha cudurrada ku dhaca markay waaweynadaan inay kala duwan yihiin walidaalika dadka aan akhriskoodu uu yar yahay ama aqoontoodu ay yar tahay inta badan waxa laga yaabaa markuu da' mucayan gaaro inuu isku dhaxdarsamo oo mental disturbance wax loo yaqaano ay dhacdo dadka marka wax akhriyo waxa leeyahay dadka wax akhriyo waxa leeyahay marka arinta ayada waxa laga yaabaa inayna ku dhicin sababtoo ah waxay baraarujinayaan akhrintu waxay baraarujinaysaa unugyada jirka maskaxda ku jira wayna wada shaqeynayaan waa koow walidaalika cudurrada sida Parkinson disease cudurrada loo yaqaan kuwa dadka ku dhacay ee degenerative disease ka la yiraahdo dadka aadka u akhriya waxa leeyahay tirada ay kaga dhacdo way ku yartaa markii loo fiiriyo dadka aan waxba akhrin waa qodobka koowaad oo ah cudurrada inay maartay hoos u dhigto akhrisku waxyaabaha kale oo maartay ay faa'iidada maartay uu akhrisku uu keenay waxa kamid ah memory qofku inuu xusuus lahaado mesela hadda maanta waxaad akhriday 25 warqadood baad akhriday 25 ka warqadood marka hadda aad akhrido waxa qofka u ziyaadaysa xusuus laakiin qofka hadduu waxba akhriin waxa la leeyahay waxa ku badan karta halmaanka laakiin qofku markuu wax akhriyo waxa dhacay stimulation of the cells markay dhacaan qofku memory-ga waa u soo noqonaya oo yani xusuus waxa laga yaabaa inuu maartay waxyaabo badan uu xusuusto qodobka saddexaad ee isagana maartay laga faa'iidi karo akhriska waxa kamid ah qofku markuu uu wax akhriyo blood concentration wax la yiraahdo hada mesela hadii aan qadeeyo marka aan qadeeyo ama qof kasta uu qadeeyo ama cunto uu cuno waa daalaya maskaxdu ka daalaya
waay buu maskaxda uga daalayaa waxaa la ogaaday maadaama uu qofkan wax cunay dhiigii waxaa lagu sii deynayaa caloosha leena caloosha hadda shaqa ka jirta waxaa leeyahay cuntada dhan halkaas iskugu tagtay waxay u baahan yihiin in la kala burburiyo in la muudsado absorption oo dhaco in meel hebla xayr laga dhigo in dhiig laga dhigo in hebel laga dhigo dhiigga marka dhiigga lagu sii deynayaa dhulka marka say shaqada u dhacdo maskaxda marka maxaa ku yaraanaya waqtiga ayada ah dhiigga ku yaraanaya marka qofku muxuu dareemayaa markuu ama afuro oo kale wax cuno ama uu maartay uu cunteeyo oo kale inuu seexdo doon uu yar daalan waay leena dhiigga hoos u dhacayo wuxuu aadaya caloosha qofku markuu wax akhrinaya marka xubnaha dhan waxa aadaya madax waxa aadaya dhiig ba aadaya dhiiggaas muxuu keenayaa concentrate wuxuu keenayaa circulation inuu wanaagsan ama qaab dhismeedka wareegga dhiigga inuu wanaagsan taasina waxay faa'iido tahay unugyada dhiigga ay faa'iido u tahay intaas oo kaliya kuma koobna faa'iidada uu leeyahay akhrisku haddii diiniyan laga fiiriyo markii koowaad wixii la soo dejiyay waxay ahayd iqra wax akhrisku marka wuxuu ka muhiimsan yahay wax kasta waa nolosha uu qofka bini'aadanka maartay ku sal waxa kale oo akhrisku uu leeyahay faa'iido keenaa in ay wada shaqeeyaan madaxu qayb uu kala leeyahay qaybtan temporalka iyo frontalka loo yaqaano qayb waxa la sulcus jira yaani qayb waxa jirta informationka jirka oo dhan ay ku soo dhacaan mesela hadda waxaan arkay libaax yaa arkay isha aragtay isha report xagee siinaysaa meesha loogu tala galay okay waxay leedahay waxaan arkay libaax nooca u eg qayba marka u xirsaaran barnaamijka inay qaabisho ama ay hesho informationka okay qofka wax akhriya waxa dhacaya marka maskaxdiisa dhan unugyada ku jiro dhan inay wada xidhiidhaan wada xiriirka muxuu keenayaa marka qofkii hada jeer inuu ahaado active maskaxdu marka inay wada shaqeyso waxa ka qayb qaata akhriska ayaa ka qayb qaata saadaraad akhrisku waa muhiim wuxuu u fiican yahay madaxa kaliya uma fiicno wuxuu u fiican yahay wadnaha wuxuu u fiican yahay physically waxaad arkaysaa qof maanta dhan wax akhrinayay stress ma helayo هذا مثلا كسو قاعد دad maanta dhan shaqada stress aad ku noqoto oo adiga asla waxayso hadaad maanta buu kala furto ama ha noqdo diini ama mid kale oo adigu ku qoseeyo ha noqdo stress ku ka tagaya waxyaabo marka laga helo waxa kamid ah akhriska qofku inuu noqdo mid stress aan qabin ama ciriiri aan qabin ama aan buuq qabin waa lagu ilooba marka faa'iidooyin fara badan buu leeyahay akhrisku oo maarta ayaga iyo maskaxda u dhaxeeyo guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii aan idiin soo saaray oo aan idinla socodsiinay anigoo Cawli Cabdi Cabdullaahi Labaqeyd oo toddobaadkan aan ku eegaynay faa'iidada akhriska naga fila toddobaadka dambe iyo wax ku xiiso geliya